إنا لله وإنا إليه راجعون. runtii maanta waxa ka dhacay suuqa kawaanka ee magaalada Baydhabo waxa ahayd musiibo aad u weyn. runtii waxay ahayd maalin murugo ay u ahayd dadka ku dhintay maanta qaraxaas ilaa tobaneeyo ay kor u dhaafayaan weli inkastoo statistiskadii ama maxay ahayd tirakoobka saxda ahaa aan la soo gudbin musiibada hadda dhacday awgeed. isbitaalka meydadka la geeyay ilaa 7 meyd ay ahaayeen. meydad kale oo dadkii qahiilada ay u soo carreen meesha ka qaadayna waa ay jiraan. dhaawacuna 30 ayay kor u dhaafayaan. arrintan waa arrin naxdin leh. waxaan u tacsiyeynaynaa shacabkii meeshaas ku dhintay. waxaan leenahay waxay ahaayeen dad la dulmiyey oo gacan ka xaq daran ay dishay. allah u naxariisto. kuwa dhaawacana waxaan leenahay ilaahay boogtiina ha idin dhayo inay bogsoodaan baana ilaahay maaragtay uga baryaynaa. dadkii intaas shacab ah oo dhibaato u geystay ilaahay waa nagu guuleeyey. ninkii keenay tarmuuska barafka ah ee lagu soo qaaday qaraxaas iyo ninkii maaragtay rumuudka waday labadoodaba meesha waxaa ka dhawaa ciidamada ammaanka ayaa meesha ka dhawaa gacanta ayaa lagu soo dhigay. arrinta kulley baaristana waa ay socotaa. insha allahu tacaala maxkamad ayaa la hor keeni doonaa. shacabka Soomaaliyeed ee reer Baydhabo runtii gacan weyn bay ka geysanayeen sidii loo qaban lahaa nimankan cadowga ah oo maxay ahayd waxa hadda ay arrintaas u yeeleen xira ciidan ma ahayn, meel dawlad degan tahay ma ahayn. waxay doonayaan ujeedadooda ay tahay kaliya inay argagixiso ku ridaan shacabka reer Baydhabo